السلام عليكم كل وعن أصحابتا كحرن جنرال كسومالي توب مركله كسر وذا موضوع عن مانتا أجاه لينا وحوي طبعا كودن معقول أي تهي إن أي بابا أما أي كترمان قارد أفريقيا لا طبعا ودن أي لقى عبس قبا إن أي قارد أفريقيا كباب أما كترمان طبعا كاسي ودن أيانا موضوع أنا كسر قادن دونا ودن ككالنت تبنات كجرا أي ودن كشيساليس وودن جزيرة يرأه وكتلا بريق أفريقيا جراهان badweynta Hindiya wadankan ayaa looga cabsi qabaa in uu ka baaba'o adduunka sababo lala xiriirinayo cimilada dalkaasi oo hadda qaraysay jasiirado yaryar oo biyaha badda ku darsamay kaalinta sagaalaad waxaa ku jira wadanka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka laga cabsi qabo inay magac iyo qariirad ahaanba uga baaba'aan qaarada Afrika waxaana loo sabaynayaa tiro xad dhaaf ah oo maamul goboleedyo iyo Somaliland oo iyaduna gooni istaag ku dhawaaqday waxaana khubarada ku xeel dheer siyaasadda Afrika ay xaqiijiyeen haddii sidan ay Soomaaliya ku socoto inay qarka u saaran tahay inay u kala go'do dawlado yaryar oo ku soo biira qaarada Afrika kaalinta sideedaad waxaa ku jira wadanka Cape Verde isna waxaa saameynaya isbeddelka cimilada waxaana sanad kasta sii baaba'aya qaybo ka mid ah dhulkiisa oo ku sii darsamaya biyaha badda waxa uu ku yaalaa galbeedka Afrika gaar ahaan badweynta Atlantic kalimaha toddobaad lixaad shanaad afraad iyo saddexaadba waxaa ku jira ilaa 6 wadan oo ku midoobay sameynta wadan cusub oo ku soo biira qaaradda Afrika gaar ahaan bariga Afrika marka la gaaro sanadka 2025 sida lagu cadeeyay heshiis ay wada gaareen ilaa 5 wadan sanadkii 2000 6 wadan ayaa ku yaala bariga Afrika waxaana ay la bixi doonaan magaca midowga bariga Afrika waxaana ka mid ah 6daasi wadan Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya iyo South Sudan oo isbahaysigan ku soo biirtay 2011 markay qaadatay xornimada waxayna tahay wadanka labaad kaalinta labaad kaga jira ee ka baabi'i doona magacan qaarada Afrika kaalinta koowaad waxaa ku jira wadanka Mauritius waa wadanka halista ugu jira inuu ku darsamo badweynta Hindiya waxaana sii kordhaya dadweynaha wadankaasi oo aanan haysan dhul ku filan sanado badan oo la soo dhaafay waxaa badweynta Hindiya ku darsamay jasiirado ka tirsan Mauritius dawladda ayaa baadagoob ugu jirta iibsiga dhul weyn oo ay ka iibsato dalalka caalamka mid kamid ah si dadweynaheeda ay ugu daabusho intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii maanta oon uga hadlaynay 10 wadan ee macquulka tahay in ay ka baaba'aan ama magacooda laga waayo qaaradda Afrika ama caalamka oo dhanba 10 wadan aan soo qaadanay maahan kuwa si sax ah loo xaqiijiyay inkastoo la saadaalinayo sida ay sheegayaanba khubarada siyaasadda gaar ahaan kuwa ku xeel dheer arrimaha juqraafiga iyo xaaladaha dalalka ka dhaca Soomaaliya ayaa ku jirta 10 wadan iyadoo sababta ugu weyn ay Soomaaliya ugu jirtaan ay tahay muddo 30 sano ah inay ku jirto qalaaso siyaasadeed oo sababay in Soomaaliya ay u kala jabto ilaa 6 maamul goboleed oo mid kamid ah uu si weyn ugu dhawaaqay in uu noqday wadan gooni ah wana Somaliland intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa mar kale barnaamijkii ama mawduuca maanta aan uga hadlaynay 10kaasi wadan waniga maxamed abdiqaadir waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe taabo fadlan dhiirigelinteena iyo horumarinta channelkuna waa like share comment haddaad nagu cusub tahay nagu soo dhir haddaad hore iga mid ahaydna la wadaag asxaabtaada channelkan